السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waayahan dambe oo muslimiinta iyo diintoodii islaamka lagu xanto inay dib u dhacsan yihiin oo aanay la socon caalamka heerka la gaadhay. muslimiin diintoodii maangaabka ahaana ay qaateen oo rumaysteen gafafka loo geysanayo. intoodii wax fahmaysayna ay qalbijab iyo nacayb ka qaadeen. waxaynu soo xasuusinaynaa dhammaantood xidigihii islaamka ee kaalinta mudnaanta iyo muhiimadda u lahaa aqoonta iyo aadamaha ugu jiray, ilaa hadda magacyadooduna ku qoran yahay, sooyaalka taariikhdana ku xaradhan yahay. ku soo dhowaada kanaalka Waa Kuma Walaal. magaciisa oo dhammaystirani waa jaabir ibnu xayaan amba abu muusa jaabir ibnu xayaan al asdi. waa aqoon-yahan muslim ahaa oo aqoon durugsan u lahaa cilmigii kimistariga, cilmi falaga, handasada, aqoonta macdanta, falsafadda iyo weliba caafimaadka. wuxuu dhashay 101 hijriga oo ku beegan 721 miilaadiga. waxaa loo badiyaa inuu ku dhashay magaalada Xarar ee dalka Turkiga. asal ahaan taariikhyahanadu way isku hayaan, laakiin inuu carab ahaa ayaa loo badiyaa. wuxuu ka dhashay qoys asal ahaan yemeniyiin ahaa oo intay Yemen ka guureen Khuraasaan iyo dhanka iyo Iiraan u guuray. aabihii waxa uu ka mid ahaa dadkii u ololeen jiray khilaafadii Cabbaasiyiinta. kadib umawiyiintii ayaa qabtay, wayna dileen. qoyskoodii dib ayuu uga soo firdhaday Ciraaq oo uu u soo guuray dhanka iyo Yemen. jaabir halkaas ayuu ku soo barbaaray oo mar dambe ayuu ku laabtay Ciraaq. jaabir Ciraaq ayuu ka bartay cilmigii kimistariga, rag wax yar yaqaanay oo aragti hanuun u haystay. wuxuuna cimrigiisa intii ugu badnayd ku qaatay qol cidla ah oo uu tijaabooyinkiisa ku wado. dhaldhalaalkii iyo xaraabaysigiina wuu iska dhaafay, sababtoo ah wuxuu rabay inuu isaguna meel iska soo saaro, dadkiisana uu wax u taro. haddaynu soo koobnaa alifaadihii, ikhtiraaciyadii iyo aragtiyadii kimistariga ee laga dhaxlay jaabir ibnu xayaan waxay gaadhayaan 3,000 aragtiyood. isaga ayuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee si rasmi ah u tijaabiyey kimistariga. inta uu shaybaadh u samaystay, isaga ayaa alifay isku dhiska alkalig oo u bixiyey magaca carabiga ahaa ee alkhalawiyaat. magacaasina marka la turjamo wuxuu noqonayaa alkalig. waxa uu sidoo kale daafuray asiidha ay ka mid yihiin hydrochloric acid iyo nitric acid. sidoo kale waxa uu alifay warqada aan gubanayn oo aanu dabku waxba yeelayn. waxa uu jaabir ibnu xayaan aadamaha uga tagay dhaxal gaadhaya 500 oo buug muddo dheer, laga soo bilaabo waayihiisaas ilaa waayihii reer Yurubku aqoonta yeesheen. buugaagtii laga dhaxlay jaabir ibnu xayaan ayaa loogu laaban jiray wixii aqoon kimistari la xidhiidha. markii la turjumay ee laatiin loo turjumay meelaha qaar magaciisa sidiisa ayaa loo qaadan jiray oo la qori jiray jaabir ibnu xayaan. sidoo kale wuxuu daraasad ku sameeyey aqoonta dabeecadda xayawaanka, waxaanu u qaybiyey 4 qaybood oo kala ahaa baalaley, xamaarato, dabaalato iyo mayeedhaan. dhammaan noocyada wuxuu u qaybiyey habnololeedkooda, goobta iyo goorta ay joogaan. waxaa lagu naanaysi jiray al-suufi, al-asadi, al-kuufi. dhab ahaantii inta la rumaysan yahay waxa uu ahaa aabihii cilmiga kimistariga. iminkana waxaynu eegaynaa waxyaalihii laga yidhi. ibnu khalduum wuxuu ku sheegay kitaabkiisa muqadamatu ibnu khalduum, imaamkii qalinleyda ee jaabir ibnu xayaan. muddo dheer ayay maadada kimistariga isaga ugu magac dari jireen oo ay odhan jireen aqoontii jaabir. waxa uuna alifay 70 qormo oo weliba mid walba u eeg tahay hal xidhaale. 2 abubakar arraasi wuxuu ku sheegay kitaabkiisa sirul asraar jaabir ibnu xayaan waa mid ka mid ah aqoon-yahanadii carabeed ee garaadka badnaa, waana iftiimiyihii kimistariga.
ugu dambayn abu muusa jaabir ibnu xayaan al asdi waxa uu ku geeriyooday magaalada kuufa ee dalka ciraaq isagoo ay da'diisu kor u dhaaftay 90 jir sanadkii 197 hijriga oo ku aadan 813 miilaadiga. allaha u naxariistee. ugu dambayn har su'aal, marka iskuulada laynoogu dhigaya kimistariga weligiin miyaad maqasheen ragga muslimiinta ahaa ee kumanaanka daafur ku lahaa kimistariga iyo aqoonta kaleba, iyadoo lasoo hadal qaadayo oo la odhanayo islaam ayaa kimistariga saameyn ku lahaa oo wax ku soo biiriyey, halka gaalada nin kasta wixii uu alifay loogu magac daray yaab. talow damiirkii dadka muslimka ahaa halkee ayuu ku dambeeyey? wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.